baarlamaanka dalka Turkiga ayaa dood ka yeeshay mustaqbalka ciidanka kaga sugan xeebaha dalka ee dagaalka kula jira kooxaha qowleysatada ee dhibaatada ku haya maraakiibta ganacsiga. Kadib kulan ay yeesheen, baarlamaanka ayaa waxay ku ayideen qorshe bilihii la soo dhaafay. Mas'uuliyiinta sare ee xukuumadda Ankara ayaa galaangal ugu jireen kaasi oo ahaa in muddo kordhin 1 sano ah loogu daro ciidanka jooga xeebaha dalka si ay u sii wadaan howlgalkooda. Inkastoo 10kii bishii aynu soo dhaafnay ee February lagu waday in uu soo idlaado howlgalka ciidanka Turkiga ayaa haddana waxaa loogu daray muddo 1 sano ah, taasi oo ka dhigan inay ku sii sugnaan doonaan ilaa iyo 10ka bisha February ee sanadka 2022. Baarlamaanka Turkiga ayaa sheegay in ciidanka kaga sugan xeebaha Soomaaliya iyo gacanka cadmeed ay muhiim u yihiin sugidda amniga maraakiibta iyo doomaha ganacsi ee laga leeyahay dalka Turkiga. Xukuumadda Ankara ayaa sidoo kale taageero xooggan oo isugu jira dhanka maaliyadda iyo tababaro ciidan ah siisa dowladda, waxaana saldhig ciidan oo ah kan ugu weyn ee dhanka dibadda ay ku leedahay magaalada Muqdisho.